marka hore dhammaan waxaan salaamayaa bulshooyinka halkan isugu timid salaadiinta leh oqaasha leh gudoomiyaha qurbajoogta leh iyo cabdiraxmaan oo isna qurbajoogtii ka mid ah iyo oqaasha dhammaan wada salaamaya marka labaad waa ilaahay mahadii maanta mar haddii meeshoo muddo kala daadsanayd oo kala firiqsanayd oo muran xoogani dhex yaalay ay maanta murankii aan wax dhex oolin kana saareen labada nin ee qurbajoogtee dibadda nooga yimid mid uu yahay rashiid cabdilaahi gaas iyo cabdiraxmaan axmed cabdilaahi aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wax arrin ballaaran oo loogu mahadnaqo oo midho dhashay oo guul dhalisay ayay qabteen waayo beeshu way qaybsanadoo ardaa baa loo kala fadhiyey beesha gabayro maaha wax yaroo qabana waa wax ballaaran beeshii ballaarnayd ee ardayadu kala fadhiday way isu keeneen sharaf bay ku mudan yihiin waana ku ammaanayaa waxaan si ogeysiinayaa qolada qurba joogta ee ay ka socdaan inamadu qeyrkiin baad ka hadheen baan idin leeyahay qeyrkii soo raaca sababtoo ah dalka abaaraa ka dhacay masiibooyin baa ka dhacay dhibaatooyin baa ka dhacay qurbajoogtii caalamku gobol iyo degmo walba nin walba degmadooda iyo gobolkooda waxbay soo taray dadkoodii caydhi iyo abaartu ku dhacday waxbay u qabteen way soo caawiyeen way soo gargaareen waar kuwan tijaar ma leh waxba ma lihidin waad ogtihiin ceelna uma maqna ciidanna uma maqna ciddii u maqnayd idinkeeda idinkuna xilkiinii waad qabteen laakiin waxaad leedahay dib isu daba qabta oo xilkiina xagga dambe dib isu fiiriya dadkiina soo tago oo soo eega asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu